waxaa heer gabagaba ah maraya horyaalka heerka koowaad degmada Walaweyn ee xarunta Martisoorka waxaana kaalinta koowaad ku wada hardamaya kooxaha Xidigaha Midnimo Malable Stars kuwaas oo leh min 13 dhibcood iyadoo koox kasta oo harsantahay kaliya 2 kulan taa oo ka dhigan in saddexdan kooxood laba kamid ah ay iswajihi doonaan taas oo ka dhigan hardan kala adag sidaas darteed isku duwaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn xarunta Martisoorka Cabdifataax Sheekh Abuukar ayaa ballanqaad u sameeyay kooxdii ku guuleysatay kaalinta koowaad iyo ciyaaryaankii ku guuleystay gool dhalinta inay abaalmarin doonaan geegi mayrabe in aan ballanqaad meel aan ku soo biyo horyaalka heerka koowaad iyo heerka lamaad ballanqaadkaas oo ah in aan dhiirgelin aan soo biyo sportska degmada Walaweyn kooxdii maanta ee degmada Walaweyn ee ka guuleysatay koobka heerka koowaad in oo ballanqaad fayle in meelun ku sii doono insha Allah ciyaaryaankii inki gool badan top score nagado in la sii doono $50 hadiyad ah awaalmarintaas oo ingadan leno in sportska Koonfur Galbeed qaasatan degmada Walaweyn xamaasadiisa inkato taasoo ah hadba astaan Walaweyn gaagma waaya astaanta Koonfur Galbeed qaasatan gobolka Shabeellaha Hoose sanadkun degmada Walaweyn maynu ku socday qaasatan xulka Koonfur Galbeed lama ciyaartooyna ku socotay lamada ciyaartooy mahay goalkeeperka iyo liibaan lamadaasi degmada Walaweyn ku socdeen mayna muujiyana awoodii degmada Walaweyn heerka gobolka Shabeellaha Hoose ku taaginto Walaweyn waa hooyada sportska gobolka Shabeellaha Hoose ma yadan ambahanta garab istaag caqabado badan jirta dhinaca garsoore dhinaca garooman walwalba baahidaas awshi ay maanta meelan soo istaagni iyo abaalmarintaasi on ballan qaadni kooxaha heerka koowaad iyo heerka lamaad in abaalmarintaas siino Michael Meelun xambaliye xiriirka sportska degmada Walaweyn oo ka shaqeeyo baahida oo hadda jirto gulshay baahida ka shaqeeyay sidoo kale isku duwaha ayaa baaq u diray xildhibaanada deegaanka ee heer federaal iyo heer state si ay qayb kaga noqdaan inay daboolaan baahiyaha sportska degmada Walaweyn iyo sidoo kale wasiirka ciyaaraha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Ibrahim Aadan Cali Najax inuu ilgaar ah ku eego baahiyaha sportska ka jira degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Michael baaq Meelun ku diray xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaanada state-ka Walaweyn ku dhiifitaan mana ku warqabtaan ma aysan ku codsadane in aysan Walaweyn ku warqabtaan dhalinyaradan Walaweyn waa dhalinyaro maanta la kifaano karo oo maanta heer sports email ku suuriyaan gobolka Shabeellaha Hoose ikan Koonfur Galbeed ilba ka fadhe isan ba aragtaan maanta Walaweyn guul soo hooyday qaasatan boortiirahena oo nagada sanadkan boortiiraha qarniga ee Koonfur Galbeed degmada garoomo ma qabto garoomankii aadan yariyaan iyo ma qabto garoonka basketball ma qabto had ka hor baahidana soo siin gudbini waagas anigu hay gudoomiye ku xigeenkii Olympic hay xoroson ka hadal arintaasi ilaa hadda xilwaano am wasiiro heer state heer federal baahidaas war isku jawaab ilaa ma jirto ma isku wareegtay lama sin isku wareegtay hadana anigu hadda isku duwa ah baaqi lama hadda siin dire ma isku ku codsadee dhalinyarada Walaweyn ma in baahiyaan garab istaag wasiirkeena Ibrahim Aadan Cali Najax ma in baaqay ma in ku codsadee ka wasaarad ahaan in si dhaqsi badan baahiyaha degmada Walaweyn ku jiro in soo garab istaago Cabdiqani Maxamed Xasan raadiyo telefishinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Walaweyn ee xarunta Martisoorka